waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen beesha Carab Soomaaliga ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay odayaal waxgarad culimo nabadoono dhalinyaro maamulka guud ee degmada Shibis iyo suldaanka guud ee beesha Carab Soomaaliga ujeedada kulankan ayaa ahaa sidii dib la isugu keeni lahaa loona midayn lahaa beesha Carab Soomaaliga waxaana sidoo kale ay beeshu doorteen gudoomiye ku meel gaara kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee beesha hore ay u lahayd waxaa kulankani ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo khudbado kooban ka jeediyay waxaana kamid ahaa codadkoodii shucuurtiisu waxa khaasaan inay shucuurteeda ma sha Allah aad ay u kacsantahay يعني وجيدان في عن oo aad u sujcal maanta ay kulmaan muddo dheer waxaan maranaysan in la sugu imaan waa ilaahay mahadiis alxamdulillah yani awood iyo xeelad annaga aan leenahay ma waa muwaafaqa min cind Allah iyo niyad wanaag oo bulshadana qaybaheeda kala duwan odayaasha dhalinyarada culimada yani ay soo hayaan sidii walaalkeena Saalix hore u soo sheegay xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam al-iimaan yamaan wal hikma yamaan Rayaam Hussein riisana saabiq asna aad ayuu ugu mahadsan yahay waa wax taariikhda ay xusi doonto waxa kale oo ku mahadsan odayaasha dhaqanka oo ayagana si sharaf iyo xigmad leh intan meel u fariisanay si daawo leh oo wanaagsan aan arrinkayn aan u dhamaysanay daawadina aan ku daawownay aad ayay u mahadsan yihiin iyo walaalkeen Cabdiqaadir Shacbaani asna sidaas oo kale aad u mahadsan yahay gudoomiye naftiisa iyo maalkiisa buu diyaar aan hawsha la garab qabano aan meel uga soo wada jeesano waxaan idinka rajaynaynaa in maanta ii sheeg maxuu ahay faatixada aan akhrisan doono oo gobosha markaan khudbadaha dhameeyna kadib oo ah gobolaabka ah inay noqoto mid qof walba uusan gadaal u noqonin qof walba oo faatixadaas ilaahay dartiis uu noqdo nin maxuu ahaa ii sheeg u diyaara marka waxaan idinka rajaynaynaa ilaahay idinkiis توفيقda in Ilaahay noo waafajiyo ugu dambeyn waxa kulanka soo xiray gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee beeshu ay dooratay waxa uu sheegay in ay si wanaagsan ula shaqeeyaan maadaama uusan kaligiis waxba qaban karin hadii aysan beeshu la shaqeyn aniga nin maamul oo jaaliyad iyo waqti u haymihi nin duruftiisa ordaayo waa ahay Nelson Mandela 27 sano xirnay dalkiisa dartiisa u xirnay maanta talada qabtina 4 sano qabtay ka bacdan xilku waa wareejiyay ilaa maanta wuxuu ku socdaan xil wareejin 4 sano nidaamku bilaw maanta socdo aniguna waxaan rajaynayaa tan kumeel gaarki in garab lagu siiyo dadkeena fahamsaneen dadka fahamsan inay isu keeno tolkayga soo aruursado hab dhismo fiican nidaam maamul fiican jaha codeyn nin qof nin jeclaysa aan wax u ikhtiyaariyo oo ku dooran karo jaalidun waxay tahay inay fahmaan jaalidad waxay tahay inay fahmaan wax u baantusino anigoo isgarab haysano adeeradeeda maamulka dhaqanka kulli adii soo dhaweynaa dali dibada laga soo wacay saciid maxaan ku qabanaa beesakta kulan garab marta ma yande اليوم نحن ما نبحث عن فلوس ولكننا نبحث عن نفوس ما انت لعقت ارادين ما جوجنا waxaan jooga ma dada iga maqan dadka ina doonto dadka iga soo aruursado hoygooda keeno waxay iin ay ogaadaan aan waxaan u hay ogaadaan ka bacdina meeshina ku saafeewno Shamis Xasan Haarun SBS TV Muqdisho